Waxaan doonayaa inaan ka hadlo qaladaad halis ku ah carruurta ama wadhalaanka oo caafimaadkooda khatar gelin kara oo ay si joogto ah u sameeyaan hooyooyinka iyagoo aan ka warheynin xilliyada carruurta ay ku quudinayaan dhalada ama masaasada. Hadba sidaa u taqaanid, waxaa laga yaabaa qaar ka mid ah qaladaadkaas inaad adigu samaysid. Haddaba intaan u gudagelin, waxaan si gaar ah kaga codsanahay in aad muuqaalka sheer garayso oo aad gaarsiiso asxaabta kugu xiran si ay ugu faa'iidaystaan. Sidoo kale muuqaalka laagsan page-kana follow dheh si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin waliba halkan soo geliyo. Sidoo kale xagga hoose kaba qaar ka mid ah hooyooyinka aad jeceshahay in muuqaalkan uu ka faa'iidaystaan. Waxaa jira qaladaad badan oo halis ku ah caafimaadka carruurta oo ay hooyooyinka sameeyaan iyagoo aanan ka warheynin xilliyada ay carruurta ku quudinayaan masaasada ama dhalada. Haddii aan ku hormaro qodobka koowaad, hooyooyinka qaar waxay ballaariyaan amaba weyneeyaan doleelka dhalada ama masaasada ama marinka caanaha soo maraya iyagoo mooda in caanaha qulqulaya ay gaabis yihiin oo ay carruurta ku daalayaan jaqida. Taasi waa qalad. Maahan in doleelka aad weyneyso waxay khatar u keeni karaan ama khatar gelin karaan caafimaadka carruurta oo waxay keenaan in ilmuhu ay ku margadaan caanaha ama ay ku saxdaan. Sidoo kale waxay keenaan haddii aad marinka weyneyso in ilmuhu habo badan ee laqaan ay keento cilada loo yaqaano colics ama calool xanuunka ilmaha. Qodobka labaad, sidoo kale waxaa halis ah oo ay hooyooyinka badankooda sameeyaan xilliyada carruurta ay ku quudinayaan dhalada ama masaasada. Hadba sidaa u taqaanid, tijaabinta heerkulka caanaha, qabow iyo kuleyl waxuu yahay iyagoo cinjirka dhalada ama masaasada afka la galayo. Xaq ayaad u leedahay dhalaanka ama carruurta adigaa dhalay, waxba kama dhibaayo inaad afkaaga ama caliyada ay isgaarto, balse waxaad ogaataa in ay jiraan bakteeriyo iyo jeermisyo kale oo ku nool afka dadka waaweyn oo aan dadka waaweyn waxba u dhibeynin caafimaadkooda, balse carruurta haddii ay afkooda gaarto ay halis ku keeni karto caafimaadka carruurta. Haddii aad doonaysid inaad ka tijaabisid heerkulka caanaha, kuleyl iyo qabow waxuu yahay inaad kala garato, waxaa wanaagsan in aad dhowr dhibcood aad ku tuujiso gacanta qaybtan jilcan. Sidoo kale curcurka gacanta halkan eegana waad ku dhibcin kartaa oo waad ku tijaabin kartaa. Ka fogow in aad cinjirka afkaad la gasho. Qodobka saddexaad, sidoo kale waxaa qalad ah ilmaha ama dhalaanka xilliyada ay jaqayaan dhalada ama masaasada in ay dhabarka u seexdaan. Taas waxay keeni kartaa in ilmuhu ay ku saxdaan caanaha. Sidoo kale waxay keeni kartaa qulqulka caanaha ee dhalada ka socda in ay dhinacyadu ay ku qulqulaan ee si fudud ay ku galaan ama ay ku gaaraan kanalka dhagaha oo ay sidaas ay ku keenaan caabuq ama infekshanada ku dhaca dhagaha oo ay dhibaato u imaado carruurta marka ay weynaadaan. Waxaa wanaagsan carruurta xilliyada aad ku quudinaysa masaasada in qaybta sare ee carruurta in aad barkin ama wax usoo dhigto ama gacantaada aad saan ugu qabato xagga sare usoo qaado. Sidoo kale waxaad samayn kartaa dhinaca waad u seexin kartaa adigoo qaybta sare ee jirka xagga sare usoo qaadaya. Sidaas waa ku siin kartaa, balse waxaa qalad ah in ay sidaan ay u seexdaan. Sidoo kale waxaa qalad ah in hooyadu ay isku biiriso caanaha naaska iyo caanaha gisicaysan. Taas waxaa ka dhalan kara reaction ay sameeyaan caanaha naaska iyo caanaha gisicaysan oo waxay dhibaato u keeni kartaa dheefshiidka. Qodobka shanaad, waxaa waajib ah dhalada ama masaasada in la meero ama la dhaqo isla markaasna lagu karkariyo biyo diiran mar walbo aad carruurta ku sii rabtid caanaha. 6 bilood ugu horeysa carruurta aad ayay muhiim u tahay. Xitaa haddii ay saacado ka soo wareegato, hal saacad ka soo wareegato ama ka yar, mar walba aad afka u gelin rabtid, waxaa wanaagsan in jeermiska laga dilo oo biyo diiran lagu karkariyo. 6 bilood dambe waad samayn kartaa dhowrkii maalmood hal mar oo kale inaad biyo diiran aad ku karkariso, balse 6 bilood hore waxaa waajib ah mar walba aad carruurta ku siinaysid dhalada inaad biyo diiran aad ku karkariso. Sidoo kale waxaa qalad ah in dhalada ama masaasada lagu meero ama lagu dhaqo kiimikooyinka ama waxyaabaha dharka lagu meero sida oomada iyo waxyaabahaas oo kale. Waxay sumeyn karaan carruurta. Waxaan u gudagalayaa qodobka 6aad oo ah qodobka aan ku soo gabagabayn doono. Waxaa qalad ah in carruurta kolkay caanaha jaqaan kadib ay ku seexdaan iyagoo aanan afka laga nadiifin. Waxaa ka dhalan karo dhibaatooyin ku imaada ciridka iyo ilkaha mustaqbalka usoo bixi doona. Waxaa wanaagsan in suuf qoyan lagu tirtiro
ama lagu nadiifiyo hareeraha ciridka. sidoo kale hadday ilkay leeyihiin hal ama laba waxay doonaan ha lahaadaan sidoo kale loo caday ayaa wanaagsan si jeermiska loogu dilo. fadlan ha iloobin in aad muuqaalka sheergarayso oo aad gaarsiiso asxaabta kugu xir si ay ugu faa'iidaystaan. sidoo kale muuqaalka laagsaar page-kana follow dheh si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo geliyo. sidoo kale xagga hoose kaba qaar ka mid ah hooyooyinka ama hooyooyinka mustaqbalka si ay ugu faa'iidaystaan muuqaalkan. intaasana kusoo gabagabeynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.